waa shanta bishii sagaalaad sanada 2021 waxaana ay Cumar Guux waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida qodobada aan idin heynana waxaa kamid ah heshiis laga gaaray khilaafkii ka dhaxeeyay labada dhinac ee gobolada waqooyi ku matalaya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya maamulka Jubbaland oo daafuray barnaamij lagu ururinayo canshuuraha gudaha ee maamulkaasi madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo daafuray qorista buugaagta dugsiyada sare ee Puntland wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug oo ballanqaad u sameeyay maamulka Dhuusamareeb ciidamada dawladda Soomaaliya howlgallo ku soo qabtay maandooriyaal iyo Sacuudiga oo ka hortagay 3 gantaal oo uga yimid dhinaca iyo xoutiyiinta qodobadaas iyo kuwa kale oo ay ku jiraan kuwa ciyaaraha ayaad ku dhageysan doontaan waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya marka la ismaqal wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan waxaynu ku bilaabaynaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo heshiis ay gaareen labada dhinac ee gudiyada gobolada waqooyi ku matalaya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay kala hogaaminayeen Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar heshiiskan waxa garwadan ka ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Mudane Baashi Yuusuf Axmed waxaana heshiiskan ay kala saxiixeen labada dhinac uu ahaa mid gabi ahaanba lagu xalinayo khilaafaadka labada dhinac hareeyay ee ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka intaas kadib waxa ay la hadleen warbaahinta gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ugu dambeynna waxaa ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Mudane Baashi Yuusuf Axmed oo sheegay in heshiiskan uu yahay mid kama dambaysa oo labada dhinac ay ku heshiiyeen waxaana uu akhriyay qodobadii ay ku heshiiyeen labada dhinac ay kula hogaaminayeen ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar markii ay tixgeliyeen wada jirka dadka midnimo doonka ah ee ka soo jeeda gobolada waqooyi Somaliland iyo danta guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed ugu jirta qabsoomidda doorashooyinka waxay ku heshiiyeen in la soo afjaro khilaafkii labada dhinac u dhaxeeyay ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobolada waqooyi Somaliland 2 in la mideeyo gudoonka iyo xubnaha guddiga maamulka doorashooyinka heer Somaliland iyadoo garabka gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ay qaadanayaan gudoomiye ku-xigeenka guddiga iyo madaxa amniga iyo logistikada 3 in la soo afjaro isku xaysigii iyo abaabulkii u dhaxeeyay siyaasiyiinta gobolada waqooyi loona midoobo hirgelinta doorasho hufan oo aan daahitaan lahayn 4 in sida ugu dhaqso badan loo gudagalo hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobolada waqooyi Somaliland heshiiskan waxa lagu gaaray magaalada Muqdisho 5 bisha sagaalaad 2021 oo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Mudane Baashi Yuusuf Axmed ay kaasi ahaa oo qodobadaas ka soo baxay labada dhinac heshiiskii ay ku gaareen Muqdisho akhrinayay Jubbaland markan haddii aynu eegnana wasaaradda maaliyadda dawlad goboleedkaasi ayaa magaalada Kismaayo ee caasimadda dawlad goboleedkaasi Jubbaland gaar ahaan caasimadda ku meel gaar ah maamulkaasi waxay ka daafurtay barnaamij lagu ururinayo canshuuraha maamulkaasi gaar ahaan kuwa guryaha laga qaado oo waliba sanadla ah wasiirka wasaaradda maaliyadda dawlad goboleedkaasi Jubbaland ayaa isagu sheegay muhiimad gooni ah inay leedahay oo waliba dadka ay bixiyaan canshuuraha si dib loogu celiyo oo waliba ay ugu qabtaan wax badan oo muhiim ah oo ay bulshadu u baahan yihiin canshuurta oo la bixiyaa waxay qayb weyn ka qaadanaysaa nabadgelyadeena guud waxay qayb weyn ka qaadanaysaa dib u dhiska iyo daryeelka dalkeena canshuurta oo la bixiyaa waxay caawinaysaa in aan isku tashanno iskuna tiirsanaano dhaxdeenana wixii aan u baahannahay aan qabsanno canshuurta dawladdu dhankeeda kale marka ay qaado waxay caawinaysaa dardargelinaysaa ama ay u sahlaysaa dawladdu in ay ku maalgeliso arrimaha bulshada ay u baahan tahay wasiirka wasaaradda maaliyadda dawlad goboleedka Jubbaland ku-xigeenka madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Karaash waxa uu magaalada Garowe ee caasimadda dawlad goboleedkaasi ka daafuray
qorista buugaagta dugsiyada sare ee dowlad goboleedkaasi. waxa uu la dardaarmay dhammaanba wasiiradii macallimiinta iyo waxgaradka ka qayb galay munaasabadan uu daahfuray islamarkaana uu ahaa qorista buugaagta dowlad goboleedkaasi Puntland. waxaana uu bogaadiyey howlaha ay wado wasaaradda waxbarashada. wasaaradda waxbarashaduna waa midna marka maanta daafurkan aynu ka qayb galnay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay macnaha uu leeyahay iyo waxtarka uu leeyahay wasiiradii iyo agaasimayaashii baa ka soo sheekeeyey waa hawl adag hawl adag waxaan ilaaway inaan ku daro kambariga maalgelinaya ama kambariyaasha maalgelinaya aad iyo aad ugu mahadsan wasaaradda iyo dowladda waxaan leeyahay qolyahaas oo kale wixii waxtar ku geysta waxaa noocaas ilgaara lagu eego priority baa la siiya dhuusamareeb haddii aynu eegno markana wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ahna kusimaha wasiirka ayaa sheegay in ay garab siin doonaan maamulka magaalada dhuusamareeb kadib halkaas oo ay ka bilowdeen dhismaha wadooyinka burburka xoogan uu ka muuqdo islamarkaana ay ku dhibaatoonayaan shacabka ku dhaqan gudaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedkaasi galmudug. waxa uu sheegay wasiiru dowluhu in ka wasaarad ahaan ay diyaar u yihiin la fariisiga maamulka magaalada dhuusamareeb oo caasimad u ah galmudug ayna wax badan ka caawin doonaan gaar ahaan mashruuca hadda halkaasi ka bilowday ee loo yaqaano GBLG oo lagu dhisayo wadooyinka burbursan ee magaalada dhuusamareeb. lacagaa ku jirta JBLG-ga waxaan ka codsanayaa JBLG-ga hay-adaha naga kaalmeynaya sida ugu dhaqsaha badan leh mashruuca 2021 inay u bilaabaan weli muusan bilaaban wuu bilaabanayaa mashruuca 2021 lacagaha degmadu ay leedahayna iyo lacago kale aan meelaha ka soo qaadno waxaan ballan qaadayaa intaan wasaaraddaas joogo maamulkeedana aan hayo inaan kugu garab istaago wax ka qabanno caasimaddana aan wax ka bedelna hadduu ilaahay yidhaahdo arrinkaasna waa kaala shaqaynayaa waxaan u ballan qaadayaa dadweynaha degan caasimadda dhuusamareeb inay ka faa'iidaystaan barnaamijkaas 2021 isku duubni ayagana in laga helo jidadka banneeyaan qashinka ka qaadaan u oggolaadaan degmada inay wax ka qabtaan iyo caasimadda dhallinyarada aysan ku adkayn jidadka qaar. markana shabeellada hoose janaale waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka shabeellada hoose waxaana dhawaan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo isugu jira booliis iyo military ay ka sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga waxaana garab ay ka helayeen ciidamadan kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya waxaana ay ku soo qabteen maandooriyaal aad u fara badan oo ugu horeeyo xashiishka oo maamulka degmada uu sheegay in xitaa qayb ay ka yihiin isticmaalkeeda ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ku sugan jiida hore ee degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Cabdiraxmaan Al Abdalah gudoomiyaha degmada Janaale ayaa sheegay in maamulka gaar ahaan maamulka gobolka dowladda federaalka Soomaaliya kan koonfur galbeed iyo maxkamadda sare ee dalka looga baahan yahay inay amarka soo saaraan arintaasi xashiishka ah ee uu sheegay in beeraha qaar xitaa lagu beeray. maxkamadda sarena waxaan ka codsanaynaa in go'aan degdeg ay ka soo saarto eri gobolka Shabeellada Hoose gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose asagana waxaan ku leenahay beerihii aad ku ogeed mooskii iyo aad ku ogeed iyo alaabihii qudaartii aad ku ogeed in wax laga qabto gobolka Shabeellada Hoose in laga qabto waxyaabaan xashiishka ah beeraha xashiishka aad ugu soo batay dadka waxay macnaha caadiyeysteen inuu ka mid noqday qudaarta caadiga la isticmaalay xashiishka beerihii aad ku ogeed mooskii iyo aad ku ogeed iyo alaabihii qudaartii aad ku ogeed xashiish isku bedelay haddii dadka jooga Janaale kulligood ay maskaxdooda maqan tahay yaa la maamulaa marka cid la maamulayo ma laha in dawladdu waxaan ka codsanaynaa in ay soo saarto awaamiir ku aadan arrinta xashiishka sida ciidamada qalabka sida oo qaarkood isticmaalo sida dadka shacabka isticmaalo sida dadka dhalinyarada yaryar isticmaalo. dibadda haddii aynu markan eegnana 3 gantaal ayaa laga tuuray dhinaca iyo sidoo kale wadanka Yemen kuwaasi oo loo tuuray dhinaca wadanka Sacuudi Arabiya. saraakiisha sare ee ka hortagga gantaalada ee Sacuudiga ayaa sheegay in 3daas gantaal ay qabteen isla markaana wax dhibaato aysan geysan. Xuutiyiinta ayaa qayb ka ah maleeshiyaadka markaasi ka dagaalamaya wadamada caalamka gaar ahaan wadanka Yemen oo qaybo fara badan oo ka tirsan ay gacanta ku hayaan. dhinaca kalena Sacuudiga waxa uu ka mid yahay isbahaysiga markaasi hogaaminaya dagaalka lagula jiro Xuutiyiinta ee ka soconaya gudaha wadankaasi Yemen. ugu dambeynna saaxiibayaal haddii aynu eegno caawa waxaa la ciyaarayaa isreebreebka koobka adduunka ee qaaradda Afrika
kaasi oo sanadka soo aadan ka furmi doona waddanka Qatar waxaana caawa ciyaari doona ilaa iyo dhowr kooxood inkastoo natiijooyinka qaar weli aysan soo bixin waxaa ciyaarta ugu horeysa oo weliba ugu dambeysa aan iraade ee dhici doonta 4 saac ay tahay labada xul ee Masar iyo sidoo kale Gabon waxaana lacawada la filayaa in ay ciyaartooda soo gasho 4 saac oo buuraha haddii uu Rabbi qadaro gabi ahaanteena waxay noqon doontaa mid aan wada daaban doono natiijooyinka ka soo kala baxa ciyaarahaas iyo kuwii kale ee ka horeeyana barnaamijyadeena iyo wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa gudaana intaas ayaan jeclaan ku hakiyo barnaamijka ama wararkii dunida anigoo guuxa soo saaray halkan idinkala socodsiinayay kaamirada MJ ayaa ka qaabeynayay intaynu ku kulmi doonno warkankiisa xigana nabadgelyo